قبيل كي كسو جدا وريا واحد ولا قلت لك تمني كسر قبيل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سياسة ما كان لوسا سياسة ما كان لوسا واي شرف يا كلام ما انت لبيت منك لنا امانه سياسة قال لا ده واي اللي هو كوسو اللي هو كوسو الى ذلك هو كوسو اللي هو كوسو على شرف يا كلام ninka odayga waayeel baasina ya bal aragtidiisa maadaama xaalado cusub saaka jiraan madaxweynaha saaka maadaama bal dogle ka degay hubkii Masar la qaybinayo xaaladu meel adag bay maraysaa bal soo dhaw waayeel waa shaashada inoo garaac intii nimid ku jirta xitaa inaadan waa dhawahay waxaan waa salaam hayaa dhamaantii inta kor saaran inta hoos saaran waxaan macnaheeyaa meesha siyaasadda ma jirto oo waxa weeye wax macna ah oo badan Soomaaligu siyaasi ma lahan calaga Soomaaligu siyaasad marka la yiraahdo waa wax mustaqbalka imaanaya ama waa wax marka taagan oo shacabka ka qarsoon iftiimintooda labada midkoodna Soomaalidu ma hayaan qofka Soomaaliga ahi siyaasaddiisu waa in uu ninka ay isku reerka yihiin markaas inuu amaano kan wax diidahayaana waa in uu ku diido ninkaas meeshii markaa jooga inaysan isku reer ahayn wax xigmado badan kuma jiraan marka waa la isaga sheekaysan Soomaalida ma ahana dad macnaha wax kaaga siyaadahayaan ma aha ma gudbeen u badan tahay ka marka inta ugu gudbo waxa weeye hubka madaxweynuhu hadduu qaybinayo dhib ma lahan oo waxaan maranayaa ciddu ugu talagalay inuu siisanahayaa maadaama aysan jirin midnimo ummad Soomaaliyeed dowladnimo Soomaaliyeedna aysan jirin wax la isla ogol yahay iyo wax la wada leeyahay midna aysan jirin ya isaga midda daabkeeda haya marka waxay la tahay hub uu qaybinayo ciddii marka isagu uu dareenayo oo isaga danihiisa shakhsiga ay ku jirto buu siisanahayaa dhowr jeer waxaan maqlay dhalinyaro ku doodaysa ciidamada la qoray ciidamada Soomaaliyeed oo magiciisa waradeeda khayr Allah idin siiyay wadanka federal system baa dalku waxa dowladana waa ugu jeednaa oo waxa weeye Somaliland calaaqad ay ciidamada kaga soo qorata ma laha Puntland ma laha Jubaland ma laha waayeel hal kalmada ku raaciye xalay dood wadaagii barnaamijkii dood wadaaga wasaaradda cadaalada waa wasiir dawladda ka tirsan wuxuu sheegay in dawladdu ciidan diyaarisay ciidankaas la yiraahdo 54 ciidankaas ay ka howlgali doonaan magaalada Boosaaso iyo ilaa Garowe iyo Buurahaas laakiin dawladda Puntland ay diidan tahay in ciidankaas meesha nabadgelyo ku tagaan ka howlgalaan bal ku soco waa macnaha iska muuqtahay al-cadaalada waa nin dhalinyaro ah oo bartay macnaha saxaafadda professionalkiisu uu ahaa warka muruxda badan sida loo dhahano waa yaqaanaa haddana waxaa ku soo biirtay munaafaqad iyo qabiil difaacasho marka wax macnaha oo badan warkiisu qaymo ma yeelanayo oo qaymo wuxuu yeelan lahaa nin macnaha banaanka ka ah waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed kala fogeynaya inuu yahay shalay toosaas wasiir ku xigeen uu ahaa markuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu mucaaradka ku ah madaxweynihii macnaha doortay buuna macnaha wadanka xukuumaynuna ahaa asaga iyo ninkii Isaaq markii ay isaga hooseeyeen marka al-cadaalada xigmadiisa waa u jeednaa caqliga xasan waa u jeednaa qoliyaha taageeraya waa u jeednaa caqligooda oo waxay wax ku taageerayaan waa fiican yahay xasan waa xasan maantuna waa fiican yahay shalana waa xumaan miyaa ma iyaga shalana wuu u saxsanaa maantana waa uu u fiican yahay aad mar walba u fiican shalana markuu lahaa yaa hiraab yaa hawiye yaa magaciisa isagoo madaxweyne qaran soo noqday oo lahaa raggiisa boodgelinaha ilaahay 91 loo noqonaya 91 ma taariikh wanaagsan baa dhacday maya waxaa dhacday dowladdii Soomaaliya ugu xoog badnayd militariga in inta meesha laga saaray nasiibna ay u yeelatay jamhada badan baa ku kacay jihadii USC meesha ummadda Soomaaliyeed oran lahaayeen oo xukunkan dictatorkan meesha ka saaray dalku hay yimaadeen 2 sano ku meel gaaran galeen ka bacdina doorasho galeen inay yiraahdaan kufsi iyo caysasho iyo qub